wadahadallo degdeg ah oo dhex maray TPLF iyo Abiy Ahmed ayay Tigreegu 5 shuruudood ku xidheen wadahadalladaasi. Sidoo kale diyaaradaha drone-iska ayaa maalintii labaad qiimo ka wada gobolkaasi Tigreega. Soo dhawaada saaxiibayaal. dhinac waxaa ka socda dadaal lagu doonayo in miiska wadahadalka la isugu keeno dowladda Itoobiya iyo maamulka Tigreega. dhinaca kalena cirka gobolkaasi waxaa maalintii labaad oo xidhiidha ka dhacaya duqeymo loo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo burbur laxaad la geystay. haddaba maxay ka dhigan tahay in Obasanjo uu maqale u tago nabad raadin degdeg ah isla waqtigaasina ciidamada cirka Itoobiya lagu eedeynayo inay duqeymo culus ka fulinayaan Tigreega? 5 shuruudood oo maamulka Debretsion Gabramakaa'il uu hordhigay Abiy Ahmed ma horseedi karaan heshiis cusub mise waxa ay noqon doonaan bilowga marxalad kale oo dagaal? subaxnimadii hore ee maalinnimadii shalay ahayd diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada cirka Itoobiya ayaa lagu soo waramayay inay duqeymo ka fuliyeen degmada Atisbi gaar ahaan deegaanka Mabrohom ee gobolkaasi Tigreega. duqeyntani ayaa timid maalin kadib markii weeraro kale oo cirka laga soo sheegay gobolka, taasi oo ka dhigaysa maalintii labaad oo xidhiidha ee diyaaradaha drone-isku bartilmaameedsanayaan gobolkaasi Tigreega. faahfaahin rasmi ah lagama hayo ujeedada duqeymahan, sidoo kalena weli ma cadda khasaaraha dhimasho, dhaawac ama burbur ee ka dhashay weerarka shalay lagu soo qaaday Mabrohom. dowladda federaalka ee Itoobiya weli kama aysan bixinin war faahfaahsan oo ay ku sheegtay waxa la duqeeyay iyo sababta loo beegsaday. maamulka Tigreega iyo ilo deegaankii waxay dhacdooyinkani ku tilmaamayaan si socoshada weeraro cirka ah oo gobolka ka dhacayay labadii toddobaad ee ugu dambeeyay. laakiin waxa xaaladda ka dhigay mid aad u xasaasi ah in duqeymahani ay dhacayaan xilli ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda u dhaxaysa Addis Ababa iyo Maqale oo aad isu soo taraysay maalmihii la soo dhaafay. madaxweynihii hore ee Nigeria Obasanjo oo horey uga mid ahaa dhexdhexaadiyeyaashii heshiiskii Pretoria ayaa booqasho aan horey loo sii shaacinin waxa uu ku tegay magaalada Maqale maalinnimadii shalay ahayd, iyadoo ay ka duldhaceen duqeymo uu markhaati ka noqday. Obasanjo ayaa halkaasi kula kulmay madaxda maamulka uu hogaamiyo Debretsion Gabramakaa'il. booqashadiisu waxay timid iyadoo walaac laga qabo dagaal cusub oo uu sii kordhayo, dhaqdhaqaaqyo ciidanna ay ka socdaan meelo kala duwan oo ku dhow xuduudda gobolkaasi Tigreega. hase yeeshee maamulka Tigreega ayaa sheegay in Obasanjo uusan kulanka la imanin hindiso cusub ama qorshe cad oo xal loogu raadinayo khilaafka haatan jira. mas-uuliyiinta Tigreegu waxa ay ku doodeen in wadahadallo iyo ballanqaadyo badan ay jireen 4 sano ee lasoo dhaafay, balse aysan arag wax isbedel muuqda ah oo ka yimid xaaladda amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee gobolka. waxay sidoo kale sheegeen in qodobo muhiim ah oo ku jiray heshiiskii Pretoria aan weli la fulinin. heshiiskaasi ayaa bishii November ee sanadii 2022 lagu soo afjaray dagaalkii dhiigga badani uu ku daatay ee u dhaxeeyay dowladda Itoobiya iyo TPLF. dagaalkaasi waxa uu sababay dhimasho aad u badan, barakac baahsan iyo burbur xoogan oo ku dhacay kaabayaashii dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada ee waqooyiga guud ahaanba dalkaasi Itoobiya. markii heshiiska Pretoria la saxeexay waxaa abuurmay rajo weyn oo laga qabay in dagaalku uu dhammaaday, adeegyada aasaasiga ahna dib loo soo celin doono. waxa kale oo la filayay in dadka barakacay ay guryahooda ku soo noqdaan, ciidamaduna ay ka fogaadaan isku dhacyo kale oo dhex mara labada dhinac. hadda maamulka Tigreegu waxa uu sheegayaa in rajadii heshiiskaasi ay sii daciifayso, isla markaasina xaaladda dhulka ka jirtay aysan waafaqsanayn ballanqaadyadii lagu kala saxeexday Pretoria dalkaasi South Africa. sababtaasi awgeed waxa uu Obasanjo hordhigeen 5 shuruudood oo ay sheegeen in ay tahay in wax laga qabto ka hor inta aan la bilaabin wadahadallo rasmi ah oo ay la yeeshaan dowladda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed. shuruudda koowaad waxa ay tahay in la qaado waxa maamulka Tigreegu ku tilmaameen xanibaadaha dhaqaale ee saaran gobolkaasi Tigreega muddada dheer. waxay dalbanayaan in si buuxda loo furo wadooyinka ganacsiga, la fududeeyo dhaqdhaqaaqyada badeecadaha iyo lacagaha, isla markaasina ganacsatada gobolka loo ogolaado inay si caadi ah ula macaamilaan gobolada kale ee dalka dibadiisa ama dalka gudihiisa.
maamulka Tigreegu waxa uu ku doodayaa in gobolku uusan ka soo kabanin burburkii dagaalka haddii dhaqdhaqaaqiisa dhaqaale uu sii ahaado mid xadidan. shuruudda labaad waa in la dejiyo xiisadaha militari lana joojiyo ururinta ciidamada iyo hubka culus ee laga soo sheegayo deegaanada ka agdhadhow xuduudda Tigreega. Tigreegu waxa ay ku doodayaan inaysan macquul ahayn in dhinacyadu ka hadlaan nabad iyo wadahadal iyadoo diyaaradaha dagaalku ay duqeymo fulinayaan ciidamaduna dhulka ay isku horfadhiyaan goobaha ka agdhadhow xuduudda Tigreega. duqeynta saaka laga soo sheegay degmada Atsisibi ayaa shuruudan ka dhigaysa mid si gaar ah isha loogu hayo. su-aashu waxay tahay diyaaradaha dronesku ma bartilmaameedsanayaan goobo ay dowladda Itoobiya ku sheegtay saldhigyo military mise duqeymahaasi waa cadaadis lagu saarayo maamulka Tigreegu in uu aqbalo shuruudo cusub. ilaa hadda dowladda federaalku ma aysan soo bandhigin macluumaad faahfaahsan oo ka jawaabaya su-aalahan. shuruudda saddexaad ee maamulka Tigreegu waxa uu la xidhiidhaa dhulka lagu muransan yahay. maamulka Debrecen ayaa dalbanaya in dib loo soo celiyo awoodda siyaasadeed iyo maamul ee deegaanada ay Tigreegu ku doodayaan inay qeyb ka yihiin gobolkooda laakiin haatan maamulaan gobollo kale. qodobkani ayaa loo arkaa caqabada ugu weyn ee hortaalla wadahadal kasta sababtoo ah dhulalkaasi lagu muransan yahay waxaa hadda gacanta ku haya maamullo iyo xogo kale oo si adag uga soo horjeeda in dib loogu wareejiyo Tigreega. arrinta dhulku ma aha keliya muran siyaasadeed, waxay xidhiidh toosa la leedahay ammaanka, barakaca, lahaanshiyaha dhulka iyo cidda maamuli doonta magaalooyinkaasi iyo wadooyinka muhiimka ahba. haddii dowladda Abiy Ahmed ay aqbasho dalabka Tigreega waxaa dhici karta in ay ka hor timaado xoogaga amxaarada ee dhulkaasi sheeganaya. haddii ay diidaan maamulka Tigreega ayaa laga yaabaa inuu ku adkaysto inuusan jirin heshiis dhab ah oo lala geli karo dowladda dhexe. shuruudda afraad waa in dadka ka barakacay dagaaladii hore loo ogolaado inay si ammaan iyo sharaf leh ugu noqdaan deegaanadoodii. kumanaan qoys ayaa weli ku nool xeryaha barakacayaal iyo goobo aan lahayn adeegyo ku filan. maamulka Tigreegu waxa uu sheegayaa in soo celinta dadkaasi aysan noqon karin ballanqaad siyaasadeed oo keliya balse ay u baahan tahay qorshe amni, dhaqaale iyo maamul oo cad intaba la isku ogyahay. laakiin soo noqoshada barakacayaashu waxa ay mar kale ku xidhan tahay muranka dhulka. dadka qaarkood waxay ka soo barakaceen deegaanada hadda ay maamulaan dhinacyo kale, taasi oo ka dhigaysa soo celintooda arrin halis ah in ay abuurto isku dhacyo cusub. shuruudda shanaad waa in TPLF dib loogu soo celiyo aqoonsigeedii sharci iyo siyaasadeed, taasi oo iyada laftirkeedu ah arrin adag. maamulka Debrecen waxa uu ku doodayaa in aan laga filan karin TPLF inay gasho wadahadal siyaasadeed oo rasmi ah iyadoo dowladda federaalku aysan u aqoonsanayn urur siyaasadeed sharci ah. dowladda federaalka iyo guddiga doorashooyinka Itoobiya ayaa u aqoonsanayn maamulka Debrecen ee hadda ka arrimiya qaybo badan oo gobolkaasi Tigray ah, waxayna sii adkeynaysaa su-aasha ah cidda sharci ahaan Tigreega ku matalaysa wadahadallo hadiiba ay dhex maraan dowladda dhexe iyo gobolkaasi Tigreega. maamulka Debrecen ayaa meesha ka saaraya maamulkii kumeel gaarka ahaa ee uu hogaaminayay Tadesse Warede, kaasi oo markii horena lagu dhisay heshiiskii Pretoria laguna taageeray go-aankii ka soo baxay dowladda federaalka. sidaasi daraadeedna khilaafka hadda ma aha keliya mid u dhexeeya Addis Ababa iyo Maqale, waxa uu sidoo kale ka jira muran ku saabsan sharciyada maamulka Tigreega, hogaanka TPLF iyo cidda awoodda u leh inay saxiixdo heshiisyo cusub hadiiba la gelayo. intii uu kulanku socday Maqale, maamulka Tigreegu wuxuu Obasanjo u sheegay inuusan danaynaynin wadahadallo furan oo aan lahayn waqti dhammaada iyo hanaan lagu fuliyo wixii lagu heshiiyo. waxay dalbadeen in wadahadal kasta oo cusub uu noqdo mid furan, waqti cayiman lagu soo afjaro. waxa kale oo ay doonayaan in ay goobjoog ka noqdaan dhinacyada caalamiga ah oo awood u leh in ay la xisaabtamaan cidda jabisa heshiiskaasi hadiiba la gaadho.
Obasanjo ayaa sheegay inuu cabashooyinkani iyo shuruudaha Tigreega gaarsiin doono madaxda dowladda federaalka ee Addis Ababa. Waxa uu sidoo kale ballan qaaday in muddo 2 toddobaad gudahooda uu jawaab ula soo noqon doono maamulka ka arrimiyo gobolkaasi Tigreega ee uu hogaamiyo Debretsion Gebremichael. Hase yeeshee 2 toddobaad ee uu Obasanjo ballanta qabsaday waxaa garab socda duqeymo aan kala go' lahayn oo maalintii labaad oo xidhiidh ku dhacay gobolkaasi Tigreega. Tani waxay dhalinaysaa su'aal muhiim ah. Ma jirtaa awood diblomaasiyadeed oo dhab ah oo la doonayo in lagu badbaadiyo heshiiskii Pretoria? Mise labada dhinac waxay wada hadalku u adeegsanayaan in waqti ay helaan iyagoo isla mar ahaantaasina isu diyaarinaya dagaal dhaba? Dowladda federaalku waxay u arki kartaa dhaqdhaqaaqyada military hab ay uga hortagayso khataro amni oo ka soo baxaya Tigreega. Maamulka Tigreeguna wuxuu dhaqdhaqaaqyadani u arki karaa jabinta heshiiskii xabad joojinta iyo fariin muujinaysa in Addis Ababa aysan diyaar u ahayn xal siyaasadeed. Haddii duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay sii socdaan, waxay dhaawici kartaa wada hadallada Obasanjo ka hor inta uusan jawaabtii uu ballan qaaday dib ugula soo noqonin Maqale. Waxay sidoo kale kordhin kartaa cabsida shacabka, dib u kicin kartaa xasuustii dagaalkii hore, isla markaasina sababi kartaa in labada dhinacba ay ciidamo dheeraad ah geeyaan furimaha dagaalka. Dhanka kalena, haddii dowladda federaalku hakiso howlgalka cirka ah oo ay jawaab siyaasadeed ka bixiso 5 shuruudood, waxaa suuragal ah in la abuuro fursad cusub oo lagu badbaadin karo heshiiskii Pretoria. laakiin aqbalida shuruudaha Tigreegu waxay Abiy Ahmed hordhigayaan go'aano aad u culus. Ma aqoonsan doonaa TPLF? Ma ogolaan doonaa in wax laga bedelo maamulka dhulka laguna muransan yahay oo gacanta loo geliyo Tigreega? Sideese uga falcelin doonaan xogaga kale ee dagaalka iyo muranka dhulka qaybta ka ah? Waxaa hadda isbarbar socda 2 arrimood oo iska soo horjeeda: Obasanjo oo gacanta ku haya fariin nabadeed iyo diyaaradaha droonka cirka oo Tigreega duqeynaya, howlgallo militarina wada. Midkee ayaa awood badan doona? 2 toddobaad ee soo socota waxay noqon karaan kuwa go'aamiya jihada Ethiopia. Haddii Obasanjo la soo noqdo qorshe ay labada dhinac aqbali karaan, waxaa furmi kara wada hadallo cusub. Haddii jawaabtu noqoto diidmo duqeymaha sii socdaan, Ethiopia waxay mar kale ku sii dhowaan kartaa dagaal aan la saadaalin karin halka uu ku dambeyn doono. Haddaba, duqeymaha maalintii labaad ka socda Tigreega ma howlgal koobanba mise waa bilowga weeraro ballaadhan? 5 shuruudood ee maamulka Debretsion ma yihiin albaab nabadeed mise waa dalabaad ay Addis Ababa ku adkaan doonto in ay aqbasho? Obasanjo ma awoodi doonaa in uu miiska wada hadalka isugu keeno 2 dhinac oo isku mar isu diyaarinaya fariimo nabadeed iyo kuwa militariba? Jawaabta waxaa laga sugayaa Addis Ababa iyo Maqale. laakiin inta laga sugayo, indhaha shacabka Tigreegu waxa ay ku jeedaan cirka, halka indhaha siyaasiyiinta Ethiopia iyo beesha caalamkuna ay ku jeedaan jawaabta uu Abiy Ahmed ka bixin doono 5 shuruudood. Sideed u aragtaa mustaqbalka Ethiopia inuu ku dambeyn doono, ama wada hadalladan hadda socdaayay ay natiijadeedu noqon doonto? Nagula wadaag barta commentiga ee Facebook-geena iyo YouTube-keenaba. aad ayaad u mahadsantihiin. Intaasi ayaan jecel lahay inaan qodobkan kusoo gabagabayno.